waxaad arkaysaa inay ku leeyihiin waxaan aruurinaa xogtaada qaybaha noocaas taleefanka aad adeegsatid, network aad adeegsatid, inta jeer taleefanka dansan yahay, inta jeer uu daaran yahay, cidda gubana la hadashid si aan u horumarino adeegsiga adeegsadaheen. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دمان داوداش قيمة يقايا مدن أدو سودوادا ما أنتو حن كهادلينا dhacdooyinkii iyo sawxankii ka soo yeeray adeegsadayaasha shirkadda WhatsApp-ka ee asbuuca la soo dhaafay. Shirkadda WhatsApp oo leh ka badan 2 bilyan oo adeegsadayaal active bishii ayaa asbuucan soo dhaafnay soo saartay go'aan ka dhan ah inay la wadaagi doonto xogta adeegsadayaasheeda shirkadda caanka ee Facebook. Taas ayaa waxay sababtay qaxi abid ugu ballaarnaa ee ka dhaca baraha bulshada, taasoo sababtay in adeegsadayaal malaayiin gaaraya ilaa 50 milyan gaaraya ay ka qaxaan shirkadda Facebook WhatsApp una qaxaan barnaamijyo kale sida Telegram iyo Signal. Haddaba waxaa la gaaray gabagabadii iyo markii ugu dambeysay ee la adeegsaday barnaamijka WhatsApp. dhacdadan ku soo aaday qaxan baahsan ee ka dhigay dhanka baraha bulshada, WhatsApp muxuu kaga soo jawaabay adeegsadayaasheeda si mustaqbal nooceeya sugaya. barnaamijka qodobada uga hadli doona waxaa ka mid ah aasaasidii iyo gundhigii koobaad ee shirkaddan adeegsanay ee dhambaal dirista ee WhatsApp, sida Facebook oo loo wareegay WhatsApp oo ugu gatay balaayiin dollar. sidoo kale waxaan hoosta ka xariiqi doonaa dagaalka ba'an ee ka dhex bilowday shirkadda Apple iyo Facebook iyo saameynta uu ku yeelan karo shirkaddan WhatsApp. waxaan sidoo kale ka hadli doonaa xogaha caynkan oo kale ay WhatsApp kula shargareyn Facebook ma shirkadda Facebook kaliya isticmaasha mise shirkadaha tunka weyn ee caanka ka ah dooxada Silicon ee shirkadda dhacda magaalada California iyo cariga Mareykanka ayaa ah kuwa sidoo kale ka siman oo adeegsada xogahan qaybo kala duwan. ma WhatsApp kaliyaaba mise shirkado kale way eegana qodobka barnaamijka uga hadli doona ayuu ka mid yahay. ugu dambeyntii gunaanadka barnaamijkeena waxaan ka hadli doonaa intee in la eg ayay yihiin kuwa aamin ah shirkadaha kale aan u qaxayno ama adeegsadayaasha WhatsApp maanta ka qaxaya ama iska tiraya u socdaan ilaa intee lag ay aamin yihiin xogta aan u dhiibanayno laftigooda qaabkeeba u isticmaalayaan ma kuwana siinaya hoy aamin ah oo xogteena ay ballan ka qaadayaan inay cid kale la wadaagi doonaan. xogahan oo faahfaahsan muuqaalka intii soo socota ayaan kaga hadli doonaa. haddii qayb yar khaas oo ku danaynaysa ay jirto aad rabay inaad qaybta hore daawatid, fadlan qaybta hoose u deg mowduucyada saan u taxayna eeg halkaana kala sii wad. ugu dambeyn barnaamijkana afkaarta inay la wadaagtid ha ilaawin. ugu horreyn waxaan ku bilaabaynaa asaasidii iyo gundhigidii shirkadda WhatsApp. sanada 2007 labada nin caanka ah ee John Com iyo Brian Acton ahna laba shaqaale oo horey uga soo shaqayn jiray shirkadda Yahoo ayaa sanada 2007 waxay shaqo u soo raadsadeen shirkadda Facebook, halka labadooduba aysan ku guuleysan in loo qaato shaqada ay soo codsadeen ee dhanka Facebook. hase yeeshee labada nin ee ku guul dareystay in loo aqbalo codsigooda shirkadda Facebook ayaa u arkay suuqa caanka ee Apple ee applications kala soo geliyo mid fursad u ah kaasoo ay soo gelin karaan fursad laftigooda ama application ay kaga macaashi karaan ama afkaartooda ahmiyadeed ee ku aadan software-ka iyo teknolojiyadda ay ku soo gudbin karaan. natiijadii dadaalka ayaa dhashay aasaasidda shirkadda WhatsApp. shirkaddan oo ah mid fududeynaysa adeeg asxaabta, qoysaska iyo dadka kala dheer ee daafaha dunida jooga iskula xiriiri karaan si fudud. sanadii 2009 Acton oo mid ka mid ah asaasayaasha shirkadda ayay u suurta gashay inuu ku qanciyo 5 shaqaale hore oo shaqo wadaag ku ahaayeen shirkadda Yahoo inay maalgashi adduuneed oo gaaraya $250,000 geliyaan shirkadda WhatsApp oo markaas curdan ahayd. isla bishii November ee sanada 2009 shirkadda WhatsApp waxay si rasmi ah u soo deysay applicationskeeda kaasoo markaas ku shaqeynaya kaliya taleefanada iPhoneska. wax yar ka bacdina waxay soo shaqaaleysiisteen aqoonyaha ku dheereeya dhanka programming ama application dhisidda kaasoo sameeyay applicationka ugu horeeyay ee adeegsadaan taleefanka suuqa ka baxay ee BlackBerry. sanadkii xigay ee 2010 barnaamijka dhambaal isdhaafsashada ee WhatsApp wuxuu ahaa mid ay soo hunguriyayaan shirkadaha ugu tunka weyn ee dhaca dooxada Silicon. dooxadan waxay dhacdaa gobolka California cariga Mareykanka waana buqacad ku caan baxday hal abuurka tiknoolajiyadda caalamiga ah. Apple, Facebook iyo Google ayaa ka mid ah shirkadaha ugu waaweyn ee degan degmadan. jiilaalkii xigay ee taariikhda ku beegnayd bisha Febraayo sanada 2013 WhatsApp waxay lahayd qiyaastii 200 milyan oo isticmaale firfircoon ama active ah iyo 50 xubnood
oo shaqaale ah. halka sanadkii xigay ee 2014 shirkadda Facebook ay ku dhawaaqday inay WhatsApp ku iibsanayso 19 bilyan oo dollar oo ah iibkeeda ugu ballaarnaa ee Facebook shirkad kale ku soo gadato ilaa hadda. dhanka kale adeegsadayaasha WhatsApp-ka asbuuc la soo dhaafay waxay ku soo waabariisteen heshiis cusub oo sheegaya in WhatsApp-ku la wadaagi doono xogtooda shirkadda weyn ee Facebook, halka kuwa aan aqbal heshiiskaana xisaabaadkooda la joojin doono ama la xiri doono wixii loo gaaray 8 Febraayo sanadda 2021. dhanka kale ha u malayn in dadka lagu qasbayo adeegsiga barnaamijkan xogtooda la wadaagaya Facebook ay yihiin adeegsadayaasha WhatsApp-ku leeyahay adduunyada daclaysa ku sugan. way ka baxsan yihiin kuwa Yurub degan iyo kuwa China degan. China kuwa jooga awalba barnaamijka WhatsApp ma isticmaaleen, shirkadoodu ilaa 2009 ilaa maalinka maanta la joogo muddo laga joogo 11 sano ama 12 sano ma aysan ahayn kuwa adeegsanaya, halka ay leeyihiin barnaamijyadooda khaaska ah WeChat, Line iyo wixii la halmaala. halka muwaadiniinta reer Yurubna ay leeyihiin policy ama heshiis cusub oo khaas ah kaasoo mid ay u dejiyeen dawladahoodu. haddaba markaad maqashay kala saarista heshiiska loo bandhigayo adeegsadayaasha barnaamijka WhatsApp-ka ee dunida ku sugan, waxaa ku soo xasuusan kartaa orahdii caanka ahayd ee qoraaga George Orwell buuggiisa Beerta Xayawaanka ee oranayay dhammaan xayawaanka dunidan way siman yihiin laakiin xayawaanada qaar ayaa ka siman kuwa kale. yacni waa la wada siman yahay laakiin kuwa qaar ayaa ka xuquuq fiican kuwa kale, taasoo aan ku fasiri karno haddii dawladda ama juqraafiyadaad ku nooshahay aysan si xuquuqiyana ama barashar ku filan aysan saari karin shirkadda WhatsApp, haddaba xuquuqdaada iyo heshiiska lagugu sanduleynayo ma aha mid wax ka qaban karta ka shaqsi ahaan ama ka adeegsada ahaan khaas ah. sababtoo shirkaddan waa shirkad leh 200 bilyan oo adeegsade adoo shaqsi ah maxaad ka noqon kartaa? maxaa sababa iyadoo Facebook uu haysto 2.7 bilyan adeegsada firfircoon ama active bishii inuu WhatsApp oo intaas ka cadad yar oo ku qasbay in xogtooda lala wadaago? Apple oo ka hor istaagsan shirkadda Facebook inay sii wadato teknoolojiyadeeda dabada ka riixaysa barnaamijka bartilmaameedsanaya adeegsadayaasha. barnaamijkan oo ah targeted advertisement waxa loo yaqaan ama xayisiinta bartilmaameedsi ku sigan ayaa mid ay ka macaashto shirkadda Facebook, taasoo aan ognahay shirkadda Facebook in dhaqaalaheeda 99% uu ka soo xaroodo dacaayadda ama xayisiinta ay sameeyaan dadka adeegsada, ha noqdaan kuwa shakhsiyaad ha noqdaan kuwa business leh iyo qaybo kala duwan intaba. haddaba bareesharka cusub ee shirkadda Apple ay soo saartay shirkadda Facebook ayaa ah in shirkadda Facebook horay u isticmaali jirtay xogta adeegsadayaasheeda ayadoon u sheegin ama aan wax ogeysiis siin, taasoo micnaheedu tahay inay ogaan karaan location-kaaga, inay baari karaan sawirada telefonkaaga, codadkaaga dhageysan karaan iyo wixii kaloo la halmaala. laakiinse applicationskii ama updateska ugu dambeeyay ee soo disay shirkadda Apple telefoonada dadka adeegsada iPhone-ka waxay xuquuq u leeyihiin ama ogaadeen in Facebook jaajuusayo, taasoo micnaheedu tahay ma ogoshahay in Facebook uu xog kuu soo diro ama xogtaada u gudbo, taasoo siinaysa adeegsadaha inuu dhaho ama maya. taas ayaa Facebook wuxuu ka soo yeeriyay xanaaq aad u ballaaran, taasoo ku tilmaamaya inay tahay mid dhaawac u geysanaysa ganacsatada yaryar ee adeegsada platform-kan, taasoo ah inay hoos u dhacayso productivity-ga ama firfircoonidii ay ku guuleysan lahayn xayisiis active ah kaasoo ay gaarsiiyaan dadka ay xayisiinta u sameynayaan ama products-kooda ay ku xayisiinayaan platform-ka. hase yeeshee aan isdhihi karno marka dhanka eegno Facebook waxay ku qasabtay ama ku riixday inuu leverage ku sameeyo ama ka faa'iideysto walxihii kale ama productskii kale uu haystay kuwaasoo awal u ahaa dadka free. haddii aan si kale u dhigno Facebook kuma aysan filnaan 2.7 bilyanka uu haysto ee sidoo kale wuxuu rabay inuu ka faa'iideysto ama uu rabaa inuu ka faa'iideysto adeegsadayaasha sida bilaashka u soo gala barnaamijka WhatsApp-ka kuwaasoo ah kuwa dhambaale kala duwan, cod iyo muuqaal, qoraallo iyo emojis intaba isugu jira ku wadaaga barnaamijkan adeegsanayaan. anigoo si qoto dheer u galeen WhatsApp-ka xogta oo la wadaaga Facebook waxaan ku hubaa inaan cidna ku mashquulin qoraal yar oo dhex maray adiyo gabadhaad caashaqday, hooyada, walaasha iyo qof kale. cidna kuma mashquulayso, ma dhahayso alla hebel wuxuu akhristaa waxaas, alla waxaasuu sameeyaa, ciddan uu la hadlay ereygaasu isticmaalay, cidna ma dhahayso. laakiin sanbalaayiinkan guud ee barnaamijkan isticmaalaya xogtooda ayaa waxaa loo keydinayaa si guud, kabacdina waxaa loo adeegsanayaa qaab xayisiis ah, taasoo micnaheedu tahay dadka WhatsApp-ka adeegsada waxa ugu badan oo ay jecel yihiin waa cabitaanka noocaasa. haddaba shirkadaha nooca cabitaanka ka shaqeeya waxay soo saari karaan products ama walxo kala duwan oo nooca ku saabsan. haddii dadku ka hadlayaan sanadkan Paris ama magaalo Heblo oo xaggaas dalxiis inuu aadan ku fafakarayaan, qoraalladoodan waxa u badan yihiin shirkadaha adeegsada duulimaadada ka shaqeeya wixii la halmaala waxay samayn karaan xaysiisyo badan oo ku aadan dhankaas, waxay la heshiis la geli karaan hoteelada magaalooyinka ka jira, waxay samayn karaan qiimo dhimis ku aadan
ticketska ay gadayeen wixii la halmaala haddaba marka Facebook ani xogteeda daawanay ka Maxamed Cabdicasiis ahaan ama WhatsApp ku daawanayo ma aha inuu ii yaqaan in Maxamed Cabdicasiis ahaan wuxuu ii yaqaanaa adeegsadaha eber hal labo waa tusaale wuxuu leeyahay adeegsadahan wuxuu ka helaa cabitaanka noocaas ah wuxuu u dalxiis tagaa dalka hebel wuxuu ka helaa filmaanta noocaas wuxuu akhriyaa buugaagta noocaas wuxuu la kulmaa goobaha noocaas dadka la kulmaa haddaba xaysiisyada dadka kale ay sameynayaan haddii yihiin kuwa aniga qoseeya ama mawduucyada aan badanaa jecel haddii kuwa qoseeya yihiin ayuu ii soo diraya ma ahan toos in la dabagalayo marka waa mawduuc isku yara jira laakiinse dabcan ilaa intee in leeg buu Facebook xaq u leeyahay inuu saas noo manipulate karayo ilaa xogteena ku cayaaro ilaa uu anaga naga warhayo oo mataqaana noo soo diro xog aan markaas haddaan doon aan raali ka ahayn haddaba muuqaalo qaar horey aan uga soo hadalnay walxaha internetka ayaa noo sheegay teknolojiyad cadaynaysa in la adeegsanayo xogo ka imaanaya aaladahan adeegsan deviceskan adeegsan oo ka mid yihiin taleefanadana taleefankaaga meelaha aad ku isticmaashid nooca uu yahay korontada ku isticmaashid batterigiisa inta uu marayo modelka uu yahay Apple miya Samsung miya Xiaomi miya shirkad kale miya whatever ay tahay in loo adeegsado ganacsi ahaan taasoo isku xiran kaliya Facebook ma ahan muuqaalkeena gabagabaysa waxaan sheegay inaan ka hadli doono xogaha noocan oo kale ayaa isticmaala tusaalaha Netflix oo kale asagoo ka hadlaya film hebel waxaa dhici karta in cabdina sawirka usoo baxaya uu duwan yahay caashana sawirka usoo baxaya uu yahay mid kale aniga midka isoo baxayana uu yahay mid ka duwan hase yeeshee uu yahay waxa aan daawanayno hal film taas waxay ku cadeynaysaa in shirkadaani ay qiimeyn ku sameynayso sawirada nooca aad ka hesho sawir nooceeba haddii la soo saaro baad ku dhufanaysaa sawirkan muuqaal caynkeeba hadduu soo galo meeshaan ayaad ku dhufanaysaa waxaa laga yaabaa filimkan inuusan ahayn film aad ka heshid ama laga yaaba inuu yahay buugaadan ka helin ama aad akhrin laakiin coverka loo soo sameeyo ama sawirka la soo saaro ayaa kaa dhigaya inaad ku dhufatid ama akhrisid ma qofka la sii shargaraysid taas oo ah mid ay laftigooda macluumaadkan u adeegsanayaan waxaa tusaale kale kugu filan shirkadda Nike oo soo saartay smart shoes ama kabaha caqliga leh wax sheegaya taasoo ah mid u sheegaysa shirkadda inta jeer aad orodid haddaad tahay qof athlete ama qof ordaa ah ama orodiyahana inta jeer oo kabaha xiratid inta jeer oo iska siibtid imise daqiiqadood baad dhuujisaa imise daqiiqadood baad iska si relaxing u xirataa dhammaan application telefonka ku jira ayaad ka saxaysa kuna sameynaysaa laakiin sida kale dhanka marka ka eegno macluumaadka waxay u diraysaa shirkadda waayo markaad application telefonka soo degsanayso ayaa waxaad tig saaraysaa in xogtaada iyo wixii ku saabsan adeegsiga kabahan aad u dirayso shirkadda haddaba waxaan kusoo koobi karnaa sababaha ugu waaweyn ee loo aruuriyo macluumaadka laba qodob midda koowaad inay tahay in xaysiis lagu sameeyo ama gadashadaada adeegsigaaga wax gadasho saameyn lagu yeesho ومدة اللبادة إن سياسة دادا أما فكر كاغا نولد أو كأدن والحاها قار سياسيا organizations مؤسسات شره إن سامين لغو يشو ولغا دادعيو إن يهين دادك نوعاس دادك أغوحون أدونك أما دادك عينكاس إن يدن تصاصة ما رaba inaad tusaale halaal u soo qaato sidoo kalena in xaysiis si toos lagu soo aadiyo intaan u soo gudbin gabagabadii gunaanadka waxaan soo sheegay asaasayaasha shirkadda inay kamid ahaayeen John iyo Brian Acton oo ahaa dadkii ugu horeeyay shirkaddan asaasay WhatsApp ayaa 2012 wuxuu ka tagay shirkaddan asagoo sheegay inaysan shirkaddu u taagnayn qodobkii koowaad ku taagneed oo ahaa in DNA-geedu ku jiro in dadka secret-kooda ama barnaamijyada data-dooda privacy-ga ay ilaaliyaan kaasoo u wareegay shirkad non-profit ah ama aan ahayn mid ribix ku dhisan ayaa sameeyay shirkaddan Signal asagoo la kaashan iyo qolo kale shirkaddan hadda dadku u qaxayaan waa mid isagu sameeyay okay haddaba waxaan soo sheegnay in dad badan ka soo qaxeen adeegsiga barnaamijkan dhambaalka la isugu dirsaday WhatsApp-ka ayagoo u guuraya barnaamijyada Telegram-ka iyo Signal-ka hase yeeshee mid kastoo ka mid ah dadkiisa qaybtiisa privacy-ga ama cookies-ka ay ku aruuriyaan waxaad arkaysaa inay ku leeyihiin waxaan aruurinaa xogtaada qaybaha noocaas telefoonka aad adeegsatid network aad adeegsatid inta jeer telefoonka dansan yahay inta jeer uu daaran yahay cid ugu banaa la hadashid si aan u horumarino adeegsadaheena ee barnaamijka aan adeeg ahaan ugu soo dhisayno haddaba ayaguna way aruurinayaan WhatsApp maanta waa lagu qasbay inuu nala soo wadaago xogtiisa oo dhaho war ogaada ani xogteeda waxaan la wadaagayaa Facebook taas dib ka soo baxday waxa dhici karta hore inuu adeegsan jiray laakiin samaanta shirkadaha kale oo u socona Telegram iyo Signal ayagu intee in la egbay laftigooda xogteena haynayaan ميزة دعي كرين لا والله بيص سنة كبعد أم صدق سنة كبعد سكاندل باصوب سيجنال بحكتين استعمالي ضد نوع سلو ذاقي واحد يركهر بأحد سنة يلا بس سنة كهر بأحد مركي فيسبوك وحير شركات صدق حاد تعصو سميني السيد transcription إن ضدك هذا لذا إسكو قريان أما عدك إسكو دوبيان أي ترين شقالة وجونية أو قرال أهان وبدري مركي لو دينا دهان وحن واديك سنة to improve user experiment إن الهرمر إنه أديك سيجا adeegsadayaashana khibradooda ku aadan noocay u isticmaalaan feedback ahaan in aan u qaadano ayaan u adeegsanay marka shirkadaha kale soo aadan laftigooda inta in leeg ay yihiin kuwa la isku aamino haddaan idin sheegay
laftigood xog bay aruurinayaan aday ku taallaa inaad ka feejignaatid